السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك. سند walba idinkoo caafimaad qaba oo caloolsan ilaahay subxaana watacaala ha idii suurtageliya inaad soomtaan bishan barakaysan. waa xilqadii koowaad ee dhambaaladeenna naftaaduna xaq leh. xilqadan waxaynu kaga hadlaynaa waxa loo yaqaano awoodda ereyga togan ama ereyga toosan. in badan marka aynu kabasho ka soo hadlayno ama arrimaha healinka waxaynu u kala qaadnaa wax kasta wax togan positive iyo wax taban oo negative. kolka awoodda ereyga togan ama toosan ayaynu maanta ka hadlaynaa. ramadaantu waa fursad uu qofku naftiisa iyo dareemadiisa iyo doonitaanadiisa iyo wixii ka khaldamay iyo wixii u toosmay iyo meelahu ku kufay iyo xaguu marayo uu xisaab dhama ama evaluation dhab ah naftiisa saari karayo. waa xilli ilaahay subxaanahu watacaala uu awood inoo siiyey in aynu innaga iyo nafteennu si foolka foolah inaynu soo aragno oo wixii inagu kala dhex jiray ee shaydaanka ahaa ilaahay subxaana watacaala inaga xidhayo. waxaynu ogsoonnahay naftu in ay mar walba gudaheeda loolan ka jiro. fa alhamaha fujuuraha wa taqwaaha oo xumaanta iyo wanaaggu ay ku loolamayaan. marar badan xilliga ramadaanta ka baxsan waynu kufaynaa, marna waynu kacaynaa, mar waxbaynu saxaynaa, marna waxbaynu khaldaynaa. marar badan shaydaanka aynaga guulaysanaya. marar badan wixii aynu saxi lahayn waxaynu saarnaa mas-uuliyadda shaydaankii. waxaan idhahnaa shaydaanba waxaa iga khalday ma saas ama sidaa ama sidaa keen. laakiin xilliga ramadaanta iyadoo naftu naftii tahay haddana wixii kuu loodinayey ee dhinaca kaala ahaa ayaa meeshii ka baxay. ilaahay subxaana watacaala ha ina waafajiyo inaynu uga soo baxno sida ugu habboon ee ugu quman ee isagu raalli uga yahay biidni raxmaan. dhambaaladan waxaan u soo gudbinayaa wax fara badanoo hore u taqaanay iyo wax fara badanoo imika laga yaabo inuu waxweeyaan dembiil maskaxdaada ka shido oo macno cusub uu kuu sameeyo. waxaan u soo gudbinayaa in aad perspectivekaaga iyo aragtidaadii ay isku beddesho waxyaabo fara badanoo naftaada ku saabsan. oo xuquuqo fara badan ay naftaada lahayd oo meela kaga dhacaysay inaad bishani waa 30 cisho. inta badan markay ka hadlayaan culimada behaviorka dhaqamadu waxay dhahaan qofku waxay qaadataa, qaar waxay dhahaan 3 week bay qaadataa in caado cusub la dhiso, qaar waxay dhahaan 22 cisho qaadataa, qaar waxay dhahaan 30 cisho qaadataa, qaar wax bay dhahaan. laakiin bishaasi waa bil uu qofku noloshiisa oo dhan wax fara badan kaga bedeli karayo. fa waxaynu isku dayeynaa dhambaaladan kooban inaynu kusoo gudbino wax nafaheena inoo dhaweynaya bishan haddii ilaahay idamka ka dhigo. awoodda ereyga togan waxa ugu faraha badan inagay nafteenna ina xidhiidhiya marka qaab dhismeedkeenna iyo fikirkeenna waxaa laga imaado waa luuqadeenna ay nafteenna kula hadalno. ereyadeenna waxay abuuraan afkaarteenna, afkaarteennana waxay abuuraan dareemadeenna. kulli waxay culimada saynsku caddeeyeen dhawaanahan in ereyada aad ku celceliso iyo afkaarta ka dhalata iyo dareemada ay sii dhaliyaani inay wax ka beddelaan structureka ama qaab dhismeedka maskaxda, bil akhas gaar ahaan qaybta talamaska. waxay markaa aaminsan yihiin culimada especially kuwooda neuroscience-kaahi in waxa la yidhaaho aragtidaada iyo xaqiiqada noloshaad nooshahay siday u eekaanayso ay saamayn ku yeelato ereyga fikirku sameeyo iyo dareenka ka dhasha. marka hore structureka iyo qaab dhismeedka maskaxdaadu beddelaya. mar labaadkana waxa uu saamayn ku yeelanayaa realitygaaga ama xaqiiqada noloshaada. waxaa looga jeedaa ereygu markuu erey taban yahay ama uu negative yahay wuxuu dhibaato u geysan karaa ama uu damage garayn karaa maskaxdaada. qaab dhismeedkeedii iyo structurekeedii buu kala dhantaali karaya. haddii structureka maskaxdaada uu kala dhantaalmo wuxuu saamayn negative ama taban ku yeelanayaa xasuustaadii iyo dareemahaagii iyo sidii aad u maamulaysa dareemaha
laftarkooda. taasina waxay saameyn ku sii yeelanaysaa habkaad u seexanaysay, appetite-kaaga iyo sidaad wax u cunaysay, maxaa la yidhaahayey habdhaqankaad dadka kula dhaqmaysay, maalintaadu siday u ekaanayso, levelka waxaa la yidhaaho farxadaadu inaad qof raynrayn gudihiisa ay ka jirto noqotay in kale ayay sii saameynaysaa. dad badani waxay yidhaahaan damaruu qofku negative yahay, culimo badan waxay yidhahaan damaruu qofku negative yahay oo taban yahay oo indhihiisu ay baasaysi uun eegaanay wax kale aanay u muuqanin, xataa waxay soo gaabisaa bay idhahaan qofka cumrigiisa oo qofku way cumri dedejisaa. markasta ood naftaada kula hadasho hadalka kan erayo aanan wanaagsanayn, wuxuu jirkaagu soo deynayaa dheecaamo stress ku furaya maskaxdaadii stress ku furaya. bal waxaad ka fikirtaa imika haddaad dad qof af xun haddaad dhegeysanayso, afkiisa uu shar ka baxayo totally wuxuu bedelayaa waxa la yidhaaho sidaad dareemaysay. adoo dhan baa uncomfortable noqonaya, adoo dhan baa dareen negative kugu abuurmaya, adoo dhan baa dareenkaaga intii xumaydi ay ku shaqaynaysaa. sida viruskoo kale ayay kolkaa ereyga xumi qofka waxweye jirkiisa wuxuuga bedelaa. jirkiisoo keliya baa xataa cidda ka agdhow markaad erey aan wanaagsanayn naftaada ku tiraho, eed caayaysid, ee aad cabanaysid, ee aad isciilkaambiyaysid, ee aad caloolyoobaysid, ee aad shaki hamiyo qami isku abuuraysid gudahaaga, in naftaadaba intaad saa maalin u eegto aanaad wax wanaagsan ku odhanayn, maskaxdaadu waxay qabatimaysaa in ay saadaaliso in afkaaga waxa ka soo baxaya mar walba uu khatar yahay. marka mar walba hormoonska iyo dheecaamada ay ku soo daynayso waxaa la yidhaaho habsami socodka dhiigaagu waxay noqonayaan kuwo balbalad iyo dhibaato kicin ah. waxaad noqonaysaa qof stif ah oo murqihiisii iyo jidhkiisii iyo calooshiisii mar walbaad moodaysa inay kuntan tahay, oo negative oo cid waliba wax weeyaan dhibsanaya oo hareerihiisa dhibsanaya oo fartu ay gaadhayso. taa macnaheedu waxa weeyaan enerjigaagii iyo tamartii jidhkaaga, budgetkii ay tamarta kuugu kaydinaysay ayaad shaxaadaysaa. marka waxaad noqonaysaa qof mar walba daalan, garbuhu ay culus yihiin, waxa weeyaan neeftu ay qabanayso, iska dhididsan, baqsan. wax waliba maskaxda ayay ku soo noqdaan. ereygaad maqlayso, shanteenna dareemood, hadday noqoto maqalka iyo hadday noqoto urta iyo hadday noqoto aragga iyo hadday noqoto dhadhanka, cidda waxaas inoo macnaysa ee macno inooga samaysaahi waa maskaxdeena. kolkaa daaqado weeyaan waxa ka soo gala. fa ka waran daaqada kugu furani hadday daaqad uun waxa weeyaan pollution kugu keenayso oo wasakhow gudahaagii soo gelinaya ereygaad kula hadlayso iyo luqadaadii hoose self-talkaagii nafla hadalkaagii kolkuu negative yahay, gudahaagii mar walba maskaxdaadii waxay kuu turjumaysaa waxaan wanaagsanayn. kolkaa erayadan inaku iskula hadalno ama dadka kale ay inagula hadlaani waxay xidhiidh dhow la leeyihiin qaabka ay maskaxdeennu ula dhaqanto ama ay u maamusho waxa la yidhaaho emotionskeena iyo dareemadeenna iyo levelka iyo heerka oo stresskeena iyo walbahaarkeenu gaarsiisnaan karo. mar kasta oo stress levelkeenu uu sarreeyo waa mar kasta oo maskaxdeeda aynu shaxaadayno oo qaabkay u shaqaynaysay aynu kala dhantaalayno. kolka eragaagu wanaagsan yahay, environmentkaagu wanaagsan yahay, nafla hadalkaagu wanaagsan yahay, ee qof yacni mutafaa'ilo rajo iyo dadiilo wanaagsan leh aad tahay, ee gudahaagu uu caafimaad qabo, waxaad qayb ka qaadanaysaa cufkii korriimeed ee maskaxdaada ama density growthka waxa loo yaqaan. sababtaasay markaa ay muhiim u tahay in aynu bal 30 cisho intaynu yar fadhiisano nafta keli ku noqono aynu isweydiino horta ereyada ugu faraha badan in anigu naftayda kula hadlaa ha noqdaan kuwa aan ayeedaya ma awowgaya ma abtigaya ma adeerka ma islaanta jaarka ama ninka dukaanka ama saaxiibkaya ma habaryartaya ma ayankaan ciddaan doono aan ka dhexleen naftayda ama iyagu kuwaas yahay label gareeyaan oo ay igu shaabadayaan oo aan ka qaato ama aniguba dhacdo nololeeda igu dhacday aan kala hadhay ereyada ugu badan ee naftayda aan ku jeedalahay maxay yihiin.
su-aashaas weydii. su-aashaa markaad isweydiiso 30 cisho ee ramadaanka sidee baan ereygaas u bedelan karaa oo erey togan oo positive ah oo aniga ii adeegaya oo maskaxdayda caafimaad ku beeraya sidee baan ugu bedelan karayaa. tusaale ahaan waxaad haysatay erey ah inaad qof liita tahay. taas waxay saameyn jirtay waxqabadkaaga, dadla hadalkaaga, kalsoonidaada, ahaanshyahaaga. bal bishan waxaad isku daydaa in aanad ahayn qofkii jilicsanaa ee aad isku taqaanay, inaad tahay insaan karaamaysan oo ilaahay subxaanahu watacaala uu wanaajiyey oo uu ujeeda abuuray. qof kasta oo adduunyadan ilaahay subxaana watacaala abuuray oo kor keenay laga bilaabo habeenkii ama maalintii ama waraba xilligii uu calool galayay billions and billions and billions spermkaa laga soo dooranayay inuu isaga qofka uu noqdo ujeeda buu ilaahay subxaana watacaala uu abuuray. fahaadii bixaddi daataha arrinkaas ayaaba ah karaamo aan karaamo ka sarraynin inuu ilaahay ku doorto oo aabbaha aadam abuuro oo ruuxdiisa ku afuufo. waxaad isweydiisaa kolkaa markaad ereygaas waxaad ka fikirtaa waqti yar aad ku qaadataa naftaada aad keli kula ahaataa ereygaa kuu soo baxay hal erayuun. maanta waxay laqadii ugu horreysay hal erayuun oo aad 30 sano u dambeysay 20 u dambeeyay 15 12 da'daadu intay leegtay ereygu ugu badnaayaad naftaada ku jeedalaysay la soo bax. isku day markaa 30 cisho gudahood inaad ereygaa bedelatid oo yawmiyan ereyga kullitiga ah ee wanaagsan inaad naftaadii aad ugu yeedhidood ku tiraahid. laga bilaabo maanta ereygaasaan nafteeda u adeegsan jiray laakiin halkaasaan ku joojiyey. halkaas ayaan ku joojiyey. ereyga wanaagsan in badan baa diinteennu ina fartay oo rasuulkeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo sheegay in ereyga wanaagsani uu sadaqa yahay. alkalimatu tayyibatu sadaqa. sadaqadu maxay tartaa? sadaqadu inay cadhada ilaahay subxaana watacaala ay damiso marka laga yimaado waxay dadka ka ilaalisaa naarta. kolkaa ereyga wanaagsani naar adduunyo iyo mid aakhiro labadaba uu kaa ilaalinaya. oo markastoo ood naftaada erey wanaagsan kula hadasho waa markastood ka baaqsato naartii iyo dabkii iyo ololkii iyo ciilkii iyo cadhadii iyo naf araggii foosha xumaa ee aad gudahaaga ku abuuraysay. ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha waquuluu qawlan sadiida. kuwii iimaanka laga helayo iimaanba hadad leedahay qul qawlan sadiida. hadal wanaagsan oo toosan dheh. hadalka wanaagsan maxaa soo gelaya? in ilaahay laga cabsado si muuqata iyo si qarsoonba. waxaa soo dhexgelaya in hadalkaagu uu sax ahaado oo positive ahaado oo qof togan oo toosan aad noqoto, qof yaqiinle inaad noqoto, qof wanaag faraya inaad noqoto, qof xumaan reebaya inaad noqoto, qof ogaal leh oo wax baranaya oo koraya oo kariimo leh oo insaan mu'min oo qawiya inaad noqoto, qof saxda si kastoo dadku uga khaldan yihiin ku istaagaya inaad noqoto, qof dhaqankiisa uu hagaagsan yahay inaad noqoto, qof hadalkiisa uu dabaxsan yahay oo latiifa oo sweeta inaad noqoto. qofka kan oo hadalkiisa iyo ereygiisa iyo dhaqankiisa iyo wejigiisa iyo wax kastoo isaga ku saabsan ay dadku ka fiigaan waxweyn inaadan noqonin. quuluu qawlan sadiida waa hadal rabbaani ah oo iimaankaaga korinaya oo akhlaaqdaada korinaya oo dhaqankaaga korinaya oo dadla dhaqankaaga korinaya oo qiyamkaaga korinaya. markaad insaan positive aad tahay, insaan positive markaad tahay waxaad noqonaysaa qof dhinac walba ka koraya. ereygaagu hadduu wanaagsanaado dadla dhaqankaaga wanaagsanaanaya naftaadaad raxiim u noqonaysaa. raxmaddaana waxaa ka dhalanaya inaad dadka kale hareerahaaga joogana aad raxiim u noqotid. dhaqankaaga waa hagaajinaya. aragtidaada nololeed buu bilaya. xidhiidhada dadka aad la leedahay damoor uu qofku qof dabacsan oo hagaagsan oo waxa weeyaan dhoolla caddayn badan oo kaftankiisu wanaagsan yahay uuna kaftan waxa weeyaan liita ahayn oo damoor ay dadku ku soo dhawaadaan.
dadku ku soo dhawaadaan fa maxaa ka wanaagsan qowlkaagu sadiid inuu noqdo oo dadka kale xataa intuuna u noqon barota naftaada u noqdo taada aad ka bilowdid bal naftaada sidaad ula hadlaysa inaad ka fiirsatid ilaahay subxaana watacaala hadalka quruxda badan ee wanaagsan ee ammaanta leh ee weyniinta leh ayaa u taga ذكرك ساسو وطغا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع قولوا قولا سديدا قل كي ليري يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم أعماشينو إدين هقاتشنيا ذنوبتين نوالو ضعفيا فوحا كدلانيا وحويا إن هذا الكاغو وناكسنادو إنسان صوف توقيسو وبوزيتيف يحيدتك كان صورة اللي أو هقاكسيه أن نقطاهي camalkaagiiba wanaajinaya because dhaqankaagu hadduu wanaagsanaado dadla dhaqankaagiiba wanaagsanaanaya dhaqankaagii ereygaagii hadalkaagu hadduu wanaagsanaado qof selective oo ereygiisa doorta aad noqotid oo afkaaga waxaa ka soo baxaya dhaqankaagu ka turjumayaa naftaada saad ula hadlaysaa skinkaaga iyo siduu u eegyahay ayuu saameyn ku yeelanaya xidhiidhadaadiyo siday u eegyihiin ayuu saameyn ku yeelanayaa aragtidaada nololeed buu saameyn ku yeelanaya xilliyadaad crisiska gashay dhibaatadu ay kugu timaado sidaad ula dhaqmaysid buu saameyn ku yeelanaya adduunyadaadan guduhuna way qurux badnaanaysaa oo naar baad ka badbaadaysaa iyo holac iyo dhib iyo dhibaatiyo calooliyow iyo isliidid iyo isku joogsasho aakhirana sadaquu kuu noqonaya fa ereygeenu inuu wanaagsanaado بالأخص نفتينا سنو لحظ لنا أينو وناجنو إري كستو نفتينا كل ليدي جرني أينو بدلنو صدن كاعشو قدو هودا أينو سكوطينو مركدك لتقن كينو نبي كهالي بحورة شري صلى الله عليه وسلم حيدي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت قفك إلهي رميي يمالنت قيامه خير هيدا مسكا آمسو بل كورهن مركستو دركتادو نفتادا عنانانيو على شنية inaad isqabatid awareness waxa weeyaan soo jeed aad lahaatid deetana aad weydiisid intaad pause garaysid haddaanan naftayda wanaag kula hadlaynin aan ka aamuso yaanan iscanaananin yaanan iscalaashanin yaanan isliidin markaan leeyaan iscanaananin kuma lihiyo noqo qof bilaa damiir ah oo khaladkiisa aan ka garaabin no dun yar baa u dhaxaysa inuu qofku egogiisa iyo qabkiisa koriyo iyo inuu qofku noqdo qof insaana oo healthy oo caafimaad qaba iimaaniyan oo nafsiyan oo ruuxiyan kanaga waxaan korinaynaa dhinaca wanaagsan ma lihin aanu iska talax tagno wax walba nafteena aan ku raacno nafteena bayna waxba weydiin saama lihin kolkaas camalkeena wanaagsanaanaya acmaasha wanaagsan layna waafajinaya dunuubteena ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu dhaafaya ka warra markaa naftaada haddaad wanaag aanad ka sheegin wanaag aanad kula hadlayno gudaheedu wanaag aanu ka jirin inaad ka aamustood ka joojiso isjeedalka iyo isdhibaataynta aad ka joojisid halkaana ajar aad ka xisaabsatid fikrad wanaagsan soo maaha caafimaad jireed baad ka qaadaysaa mid maskaxeed baad ka qaadaysaa mid dareemeed baad ka qaadaysaa canaantaadii calooliyowgaagii baa yaraanaya dagahaaga waxaa soo gelaya xataa inuu hadalku sadiid yahay in kale aad ka fiirsatid waxaad ka badbaadaysaa xantii iyo caydii iyo caabayntii iyo xagxagashadii iyo markhaati beeneedkii iyo qadfigii iyo ku talaxtagii waxaasoo dhan baad ka badbaadaysaa haddaad very selective ereygaaga haddaad dooran karaysid markaad naftaada kula hadlaysid iyo marka aad dadka kale kula hadlaysid labadaba kaa caawinaya inaad perfectionismkii aad ka tagtid oo qof isku talax taga inaadan noqonin ayuu kaa caawinaya markii dhibaata dhacdo qof dhibaatadii sideeda u xalliya oo si dabiiciya intuu u eego yidhaaha okay waxaas way dhaceen sidee baan u xallin karayaan oo nafteydana dhibaataynin waxa weeyaan halkii aan isku canaantay isku calaashtayna aan sii taagnin at the same time wax ka baran karaya damiin baan ahay doqon baan ahay qof litaan ahay qof jilicsan baan ahay qof kanaan ahay keeraan ahay bababababa waxaasoo dhan bishan ku tababar naftaada inay ka go'do oo problemska aanay magac iyo identity ka tolanin qof naftiisa caawiya ee aan dhibaatooyinka nolosha yacni
ugu dul tegin oo isna dhibaato kale ku noqonin ducada markaan dhambaalkan u dooranayna waxa weeyaan ducada rasuulku sallallahu alayhi wasallam Ali bin Abi Talib uu amray qaal rasuulullah sallallahu alayhi wasallam waxaad tiraahdaa buu ku yidhi qul illaahumma ihdinii wasaddidnii waxaad tiraahdaa allaahumma allahayow ihdinii i hanuuni wasaddidnii i toosi kolkaad ku ducaysanayso ducadaana waxaad xasuusataa بالهدى مركز هنونك كنت عايزاني سيد هدايتك الطريق سيد الطريق أنا تكلمين يا أوكالي حسوسنو طريق صح إنو لهي كوبو توسيكو حسوسنو والسداد توسنان تاسنا وحادكو حسوستا سداد السهم وحالي هوين اللهم صل على سيدنا محمد كلك لابك قاصد لغا توريو ماشي لوغو طلقالي إنو قادو ayaa la yidhaha sadaada saham uu toosnaado taargetkii la doonayay inuu ku dhaco marka ilaahay suu carabkeenna u saxo tafkiirkeenna u saxo naflahadalkeenna u saxo nolosheenna oo dhan u saxo dhambaalka ducadan aynu ku ducaysanna wax weeyaan allaahumma ihdinii wasaddidnii salaam